soo dhowow daawade maantay waxaan ka hadli doonaa mid ka mid ah taariikhda saynisyahanadii ugu waaweynaa ee abad soo maray dunida islaamka waana al-Khawaarizmi. haddii aad maqashay magaca al-Khawaarizmi laakiin aadan ogeyn sida uu u saameeyey cilmiga casriga ah iyo sida nolosheenna maalin kasta aan u isticmaalno fikradihiisa, waxaan ku hayaa wax badan oo xiiso leh. nagu soo biir si aad qayb uga noqoto bulshadeenna oo aad si joogto ah u hesho warbixino xiiso leh. al-Khawaarizmi waxa uu dhashay sanadkii 780 miilaadiga meel u dhow magaalada Baghdad oo ahayd caasimadii khilaafadii Cabbaasiyiinta. waqtigaasi Baghdad waxa ay ahayd xarunta cilmiga iyo aqoonta. al-Khawaarizmi waxa uu ka mid ahaa aqoon-yahanadii ugu caansanaa ee ku sugnaa daarta al-Xigma oo ahayd meel ay isugu yimaadeen saynisyahano iyo qoraayaal ka kala yimid daafaha dunida. meeshan waxa ay ahayd halka lagu turjumay oo lagu kaydiyey aqoontii hore ee Giriiga iyo sidoo kale Hindida. mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee aan maanta u aqoonsanayno al-Khawaarizmi waa inuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee si nidaamsan u sharaxa xisaabta aljabra. buuggiisa caanka ah ee al-kitaab al-mukhtasir fi xisaab aljabra walmuqaabala ayaa si qotar uga hadlay sida loo xalliyo xisaabaadka adag ee ka dhasha isku darka iyo kala goynta dhinacyada xisaabta. waxaana halkaa ka muuqata in al-Khawaarizmi uu ahaa aabbaha aljabrada, waxaana la dhihi karaa ficilada xisaabeed uu sharaxay ayaa noqday saldhigga xisaabta ee casriga ah. magaca aljabri laftiisu waxa uu ka yimid ereyga aljab oo micnihiisu yahay dhammaystir oo u adeegsaday al-Khawaarizmi. nidaamkan xisaabeed uu sameeyey waxa uu u oggolaaday in la xalliyo dhibaatooyinka xisaabeed oo horay u adkaa in la xalliyo, waxaana la adeegsadaa ilaa maantadan casriga ah, gaar ahaan xisaabaha injineeriyadda iyo cilmi baarista sayniska. magaca algorithm sidoo kale waxa uu ka yimid magaca al-Khawaarizmi. algoritmyada waa habka lagu kala sooco oo si nidaamsan loo maro sidii loo xallin lahaa dhibaato xisaabeed ama howl gaar ah. waxaan ku aragnaa algoritmyada kombiyuutarada casriga ah, gaar ahaan barnaamijyada loo isticmaalo raadinta macluumaadka iyo hababka wax soo saarka. haddii aad isticmaashay Google, isticmaalka algoritmka waxa uu muhiim u yahay raadinta natiijooyinka saxda ah. sidaa darteed waxaad arkaysaa in noloshaada maalin kasta ay saamayn ku leeyihiin fikradihii uu soo hindisay al-Khawaarizmi qarnigii 9aad. al-Khawaarizmi ma ahayn oo keliya xisaabiye, wuxuu sidoo kale ahaa juqraafiyaqaan iyo falagyaqaan. waxa uu qoray buugaag muhiim ah oo uu kaga hadlay juqraafiga, kuwaasoo lagu sharaxay sida loo cabiro juqraafi ahaan dhulka iyo sida loo isticmaalo qorraxda iyo xidigaha si loo ogaado goobaha kala duwan. mid ka mid ah fikradihiisii ugu caansanaa waxa uu ku qoray kitaabka la yidhaahdo kitaab suuratul ard oo ah buug uu ku qoray khariidadda guud ee adduunka oo ay ku jiraan waddamada, magaalooyinka iyo xuduudaha waaweyn ee wakhtigiisii. shaqadiisa ku saabsan cilmiga juqraafiga iyo xidigaha waxay kaloo door weyn ka ciyaartay horumarinta cilmiga falagga ama xidigiska, waxaana la adeegsaday qarniyo badan ka hor inta uusan adduunku gaarin barashada saxda ah ee cilmiga cirka. buugaagtii iyo kitaabadii ay qoreen al-Khawaarizmi iyo saynisyahanadii la jaalka ahaa waxay mar dambe gaareen Yurub, halkaasoo lagu turjumay luuqadda Laatiinka. taasna waxa ay keentay in reer Yurub ay dib u nooleeyaan cilmigooda sayniska iyo xisaabaadka iyagoo ka soo dheeganaya buugaagtaas. waxayna noqon kartaa lama filaan inaad ogaato in dad badan oo reer galbeed ah ama reer Yurub ah ay qarniyo badan isticmaalayeen buugaagtii al-Khawaarizmi oo ay ka bartaan xisaabaadka. sidoo kalena buugaagtiisii waxaa laga dhigay manhajyo lagu dhigo jaamacadaha Yurub. maanta al-Khawaarizmi waxaa si weyn loogu xasuustaa sida hal-abuurka weyn leh ee uu sayniska uga qayb qaatay. horumarkiisa waxa nolosheenna ka muuqdaa maalin kasta. algoritmka waxaa lagu isticmaalaa aaladaha kombiyuutarka iyo kuwa internetka. aljabradana waxaa lagu bartaa iskuullada iyo jaamacadaha. cilmigiisa juqraafiga waxaa laga dhaxlay qariiradda casriga ee maantadan adduunka. haddii aanad horay u ogeyn magaca al-Khawaarizmi, hadda waxaad ila ogaatay inuu yahay halyeyga qarsoon ee caawinaya nidaamyada casriga ah ee nolosheenna. gabagabadii al-Khawaarizmi waxa uu ahaa qof muhiim ah taariikhda sayniska, xisaabaadka iyo tiknoolajiyadda casriga ah marka loo eego. haddii aan maanta haysanno hababka casriga ee xisaabta iyo kombiyuutarka, wax badan waxaa naga saaciday shaqadiisii qiimaha badnayd.
waxaan rajaynaynaa inaad wax badan ka baratay taariikhdiisii iyo saamayntiisii ku lahaa cilmiga. haddii aadan weli na soo raacin daawada nagu soo bir, sidoo kaleeta like saar fiidiyogan haddii uu ku cajabiyey, waanaad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.